وقيبتي اللحاد يتعنى هني أنك يهلين الدقنك رير قراغ وحانا هدو إله إلى العاوة قادة ديك دونا قوركي هوري عنده أما قورك بايسكاده سينو هوري وأوغا شرقا مني أما ينوصو شاقني قورك وحلو قيبين شري 8 قيبوت دوالايد مو intii aynu karayna caaw ka sheegi doonaa kule guurka markii la yiraahdo qaybo kamid wali way jiraan qaybana hadda ma jiraan laakiin bal aynu yar dul istaagno guur maxaa la yiraahdaa guurku waa xiriir sharci ah diini ah oo u dhaxeeya nin iyo qof dumar ah kaas oo lagu dhisayo maxay qoys laguna helayo nolol wadaag iyo mas'uuliyad ay labada dhinac wadaagaan ama qaataan guurku waa heshiis u dhaxeeya wiil iyo gabadh doonaya inay sameeyaan ama yagleelaan maxay qoys ama reer ku soo biiriyaan bulshada ay ku dhex nool yihiin guurku waa shay ay raali ka tahay diinteena suubani isla mar ahaantaana uu inoo baneeyay allaha subxaanahu wa tacaala uu inoo baneeyay waa shay uu inoo sheegay nabigeenni suubanaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa shay faa'iidadiisa ugu weyni tahay ubad lagu nasto oo loo aayo mustaqbalka dhow iyo ka fog guurku waa sida haddaba aynu soo qaadano qaybaha uu guurku leeyahay guurka la yiraahdo xarig xidhashada aan ku bilowno xarig xidhasho waa taageero raadin waa guur lagu raadinayo taageere tusaale wuxuu rabaa inuu qabiil garab xooggan ka helo ama ceel uu ka cabo inay siiyaan sidaa darteed wuxuu ka guursan jiray gabadh dadka ceelka iyo carshintaas waa asagu doonayo inuu ama ka cabo ama la dago dadkaasuu gabadh ka guursan jiray oo xid u noqon jiray ama gabadh buu siin jiray oo dhihi jiray gabadhaasaan idin hayaaye iga guursada dadna wuu la xididi jiray mar hadduu la xidido oo ama asaga laga guursado ama asagu guursadana dadkaas dhex galaba wayna difaacayaan hantidiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisuna biyo waxay cabaan ma waheelayaan bade waa heerka is dhex galeen guurka labaad waa dun xidhashadu waa guurka dunta lagu xidho gabadh waxa uu ahaan jiray noocyada haweenka loo bixiyo ama loo guursado guurkan sida magacaaba ka muuqata ama aad ka arkaysaan waxaa inta badan lagu xidhan jiray dun gabadha yarta soo kacda oo iyadoo yaroo 10 jir ama 8 jir ah ayuu quruxdeeda markuu arka gabadha ayuu ninku ka heli jiray kadibna uu ku dun xidhan jiray warigeed marka uu soo kori jirtay kolba wax uu geyn jiray marka uu dambeysana haddii asagu ma u joogtaay markay soo qaangaadhay weynaato ayuu guursan jiray guurka saddexaad waa magacdoon waa nin gabadh u fadhiista isagoon garanaynin gabadhuusan aqoonin baa loo ammaanay maad maqashay gabadha hebla wadankaas oo kadibna uu iska aadi wuxuu leeyahay gabadha hebla aan rabaa anigu heblaan idinka fadhiya dee hala ii guuriyo gabadha muusan arag laakiin waa loo sheekeeyey magacaasu marka ku socdaa wuu imanayaa gabadhi marka meheryaad nolol siin baa isku darayaa muuqeeda iyo magaceeda muuqeeda weligeedna muusan arag arrintaa magacdoonka ah ee gabadha asagoon arag intuu u fadhiistay loo guurin jiray mararka qaarkood khasaare iyo dhibaato ayaa lagala kulmi jiray
oo waxa laga yaabaa magaca gabadha loo bixiyayba inaynan u qalmin sheeko gacan baana jirtay oo ninbaa wuxuu u fadhiistay gabadh la odhan jiray meel ma dhiman la cali meelama dhimana qurux darteed gabadhii waxa way u soo fadhiistay waa loo guuriyey xilliguu soo fadhiistay show diraac bay ahayd uu iska joogay roobkii markuu da'ay yuu geeli hordhac ahaa ee yaradkaa soo kaxeeyey soo geeli soo wada oo reerka ku soo socda geelina qaar baa irmaanaaya halihii irmaanaa raba inuu maaragtay qaar ka marqo oo naasaha maaragtay dee caanaha waxaa rabaa caawa in la maale inuu ka marqan rabo ayuu arkay qof dumar ahoo reerkii uu ku socday korkiisa meelaho ka fog ka diiranaysa meydhax wuu yimaado wuu salaamay isma garanayaan waran nabada waran laakiin wuu arkaa gabadh waxoogaa maskaxiyan aan fiicnayn inay tahay buu arkay wuu salaamay way ka qaaday wuxuu yidhi waxaan rabaa meydhaxdan aad diirayso mid ka mid ah isii aan hal ku marqade hal baan ku marayaa waxay tiri meel ma dhiman la cali oo migeedii minjaha keenay maxaa geel maraq u diira uga dan ah meel ma dhiman la cali oo minkeedii minka waxaa la yidhahdaa guriga minjaha keenay yacni soo muuqdo yacni gurigeedii hadda la dhisayo geeluu nin wato maraqiisii iyo hawlaha maxaa ka galay bay tiri meel ma dhiman la calidii la sheegi ma adiga agsdir waa aniga xilligaasuu geeliisii dib u ceshaday oo yidhi tan hadday tahay waxaa weeye dee guur meeshaa ma yaallo iyada lafteeda ways candho goysay hadday garanayso oo ninkeedii inuu yahay ee garanaysa way isqarin lahayd malahayga marka ninkaasi wuu sigtay haddii gilaa yarka laga qaadi lahayd si loo soo celiyo muusan heleen guurka marka waxaa la yidhaahdaa magac doon magac unbuu doonay mooyeen muuq iyo maaragtay bildhaan midna muusan araga magaca buu raacay waxaa kaloo iyadna jirtay sheeko dhex martay nin la odhan jiray qoorgaab iyo reeruu la xididay qoorgaab nin abwaana oo gabayaa buu ahaa reeray ishayaan oo ka dhaxayso gabayada iyo maaragtay xilif dhexdooda ay ka taagan tahay ayuu gabadh ooga fadhiistay gabadha muusan arag laakiin waa loo ammaanay gabadhii waa la siiyey siin iyo weliba meher ayaa la iskugu daray ninkan iyo heerku gabadha ka guursaday waxoogaa baa ka dhaxaysay go-aan baa la gaaray waxaa la yidhi maalinka uu yimaado 3 arrimood baynu ku samaynaynaa waa kow guri horta waxaan u dhisaynaa wadakabada oo irid laga galo aan la garanaynin waa laba gabadha uu guursaday dumar baan soo raacaynaa waxaan dhahaynaa ka garo islaantaadii waa mid saddexaad lax bakhtiyayna waan u qalaynaa 3 arrin iskugu dareen ninku nin afgaan ah oo khubuura buu ahaaye kaartu asaguna sameeyey gabadhu xoogaa yar aqligu ka yar dhiman yahay laga aqli badan yahay baan dhaho ayuu la heshiiyey wuxuu yidhi wasaan xogta ku hayo anigu wixii reerka hawle ka timaada iyo arrin ila soo socotay buu ku yidhi malaha dee maalinku geela keenaya maalmo ka hor soo reerka si yar weydaa ku yimaada geeli oo kor daaqaya reerka oo lax bakhtiyayna loo qalay gabadhiina la soo diyaariyey ayay gabadhii meel ugu timaada waxay tiri arrintaasaa taagan neef bakhtiyana waa lagu qalay dee gurigana wadakawadana waa lagu dhisay laakiin guriga meesha duntu kaga xidhan tahay baa laga soo galaa guriga marka wuxuu yidhi guriga waan gartay 2 arrimood labadaba ii sameey xagga horta bakhtigaas isaga waan fahmay gabadha gurigana waan fahmay gabadha marka la hor keeno dumarka ay ku jirto gabayna waan tirin gacantana waan taagay naawu ku gartay dheeb naawu aan ku gartay dheeb ku yiri sidii bay isla qaateen oo sheeko dheer weeyaan waa yahay metr sidii bay isku ogaadeen kadib
say geed loo waabay la hagaajiyay baa la geeyey geedkaas oo iska harsanaya goor casarkii gabdhihii oo fara badan oo xaaskiisii ku jirto ayaa loogu yeedhay waxaa la yidhi ka garo xaaskaagii gabdhihii hortaagan buu gabay tiriyey malyan dumar hadday meel marto maalin socotayso mid baa mas-uul laga dhigaa madax sideedii nahoy marada tuur naag xun baan muuqan weligeed wax noocaas u tiriyey gacansa u taagay alla naawo ku gartay bay tirintay garabka ka dharbaaxday halkaa waxaa ku fashilmay karashadii gabadha oo dee garay len gabadhii baa taabatay oo tirnaa ku garay kadib waxaa la yidhi gurigaagii aad marka oo gal gurigii buu soo aaday wuxuu feerfeeriyey baa meeshii duntu kaga xidhnayd ayuu ka soo galay gurigii nimanka marka waxaa la yidhi intiiba wuu gartay haddii laakiin laxda hilibkeeda markii la hoos dhigo uu laxda hilibkeeda cuno baktiga waynu ka badinaynaa haddii laakiin laxda uu diiday hilibkeeda baktiga gabaygana uu laan ka bilaabo ninka ugu dhowaan mayna inaga daayay dheh laxdii baa loo keenay baktiga hilibkeedii xaaskiisii u keentay dee wuu la socday wuxuu yidhi lax la qalay la geed iyo haddii loola tallaysiiyo waa habeenkii aanan liqeen lug iyo jiirhkeeda waa habeenkii aan lumi jireen laaci jiray meele waa habeenkii aanan ladeen ama lulmoodeene waa habeenkan sida lukida luuqadayn jiraye layga libin helyaa iyo sidii laas u gurayaaba haddii laylihiin deeyey ninkii laabanba u yeedhabu haddii laisku kadeeyo bal ninkii aad isleedihiin waxbuu sheegi karaana u yeedha buu yidhi waxbaa iska hakraanine xilligaasaa marka la yidhi dee ninkani kol hadduu laanna ka gabiyey xujooyinka kale oo dhanna furay bes weeye guurka markaa khatarahaasaa laga mudan jiray oo qof aadan aqoonin oo iska kor ka jeclaatay ayaa intii lagu guuriyo laga yaabo mararka qaarkood dee adoon garanayn inaad soo hoyato indhaha taagtaagto waa guur adag soo maaha inta aan ku dayno waxaa inoogu xigi doonaa guurka afraad oo ka hadlahaya muunayn